ولما isweydiisay diyaaradan hawada iska maraysa wartiya sameeyay waa takale fikradan yaa keenay muuqaalkeenan ayaan ka warami doonaa imkiyo haatan ku soo dhaw muuqaalkeena maanta ku soo dhaw channelkeena Xamza Tookhane subscribe like kana saar si ay ku soo gaadhaan muuqaalo kale oo badan waxaa jiray laba nin oo walaalaha oo la kala oran jiray Wilbur iyo Olfeld Wilbur wuxuu dhashay Abriil 16keedii 1867 sidoo kale walaalkeena wuxuu dhashay August 19keedii 1871 haddaba laba nin ayaa loo aqoonsaday inay yihiin labadii qof ee ugu horeeyay ee sameeyay diyaarad haddaba sanadku markuu ahaa 1900koodii ayaa labadan walaalaha ay xog ka soo ururiyeen hawada sare mar hadday helaan hawada sida u shaqeynayso waxa uu fududaanaysaa inay sameeyaan diyaarad taas oo ahayd hamigooda haddaba waxay wadaanba aakhirkii sanadku markuu ahaa 1902 ay labadan walaalaha ku guuleysteen inay ka miro dhaliyaan ama ka rumeeyaan hamigoodii haddaba sanadka bacdi oo ahayd 1903 ay Mareykanku labadan walaalaha siiyay meel ka baxsan magaalada halkaas oo ahayd meel buura oo dheeco wanaagsan leh haddaba labadii walaalaha mid kamid ah ayaa tijaabiyay diyaaradii waxaanu ahaa duulimaadkeedii ugu horeeyay waxa hawada ku jiraanba ku socday 12 ilbiriqsi isagoo ku safray 36 mitir haddaba isla maalintaas waxay sameeyeen 3 duulimaad markii saddexaad ay ku guuleysteen waxaana saas taariikhda kaga galeen bahal dahaba intaas ay maanta nuugay barnaamijkeena inta ku kulmayna barnaamijkan barnaamijkimada waxaan iga tagnaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xiran channelkayga Xamza Tookhane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iido doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh